dhaqaajiye dulmiye ka waaweyn baa la dhaqaajiye waxaynu leenahay isma muquunin karno codka halkan yaallaa cod la muquunin kara maaha cod la muquunin karo maaha walaalayaal waxa fiican qofka bilaadanka inuu xasuusto halkuu shalay uu ka yimid inuu xasuusto fiican ilaahay baa yidhi factabiruu yaa ulil absaar halkuu qayrkaa ku jabay haddaad weli rafanayso oo wixii shalay Soomaali kala dilay aad la dhex fadhida maanta Soomaaliland dhexdeeda cadaalad noqon mayso taas waxaan ku faraxsanahay dareenkan habeen ka dambaysa si tarmaya si awoodaysanaya si xoogaysanaya 30 sanadood waxa waqtigeenu ku lumay aad baa u yareeyeen intiinani 20 oday 15 oday iyo waxa dhaamin baa kulna Hargeysa oo sii socday kulna boorama ku soo socday waanu iskhilaafnay waanu istiidnay hebel baa khiyaameynaya hebel baa halka ka baxay waxa saa doodoodu ahayd inay midho dhali weydo doodaas oo jirkii waxa keentay dad tiro yari masiiro madad waxba kama bedelaan laakiin arrin qoys iyo arrin qof ayay wax ka bedeli karaan marka doonaysaan inaad heshaan shaqada aad u haraad qabtaan marka doonaysaan hay'adaha kala duwan ee Soomaaliland inaad qaybtiina qaadataan marka doonaysaan iskoolarshiyada Soomaaliland inaad qaybtiina qaadataan marka doonaysaan qandaraasyada Soomaaliland inaad qaybtiina qaadataan marka doonaysaan safiirada inaad qaybtiina qaadataan marka doonaysaan inaad xildhibaanada intaad u qaadataan waxa la doonayaa inaad dhammaantiin soo sarakacdaan oo qof walba ku taagan ما جرتو تاريخنا ضد بقول كيما بقول ميل اسكو راعي ما جرات نبي محمد بن الله صدري عليه الصلاه والسلام كلمه الحق وسدي دينتي الهي وسدي قولوا لا اله الا الله تفلحون مركو يري ولا لو قيبسمو ريب بن هاشم ريب ابي طالب هو قيبسمو لكن يا بوليستي انت حقك سعوتي بقوليستي انت وناك دوني سبب بوليستي انت عداله دوني سبب بوليستي وهالكن ما ميد إنك ميدا أو ظلم وفرديا أو إنه ولا عليه الظلم إنه يستووا وما الظلم دوني هالك فرديا صوّح إنه حق ولا نعم دوني إنه ده محا كاني إنه عيب نقطه إنه عين نقطه إنه ضد كاللوجا دقو وحي أمدي دوني سيطرين أمدي ربيتان أمدي لقى دقو قرنتوس إن ميلا لا وريجيستو Soomaaliya ka dambaysa xagay Soomaaliya naga dambaysa dalkaygi baanu joognaa dalkaygi baanu ka hadlaynaa dawladdaanu dhisnay baanu doonaynaa way dhisatay Soomaaliland way qabatay qaybteedii baanu doonaa cadaaladdeeda doonayna waxaan doonayaa innaga dareenkeena iyo rabitaankeena halkan ku joognaa ma aha mid aynu kaga soo horjeedno jiritaanka iyo qarannimada Soomaaliland waa mid aynu doonayno inaynu waxaynu xaq u leenahay helno dadka kale xaqooda la dhacanay helaan baarlamaanka yaridiisu waxyaabaha ina baday baan idin sheegaya maad maqashay miisaaniyada Soomaaliland duuduub lagu asixiyaa sababta duuduubka loogu asixiyaa ma taqaan wax kale ma waa si aan dadkan xildhibaanada mooshin ku soo jeedin karaan aan la haynin aanay uga dhaxdoodin waxa weeyaan golaha dhexdiisa weey absolute majority golaha ayaa isku reer noqday Soomaaliba inay isla qangaranaynaa habeenkii inta guri la fadhiisto ee lagu soo heshiiyay oo weynaynta ku qor ma aragtay aynaba meesha la raanayta ku qor gabileynayta ku qor ayaa lagu horay durdura lagu wasiyay dadka kale intoodii yaa qoraya waxaanu doonaynaa xildhibaanadii dila boor garbadadar sayla لغهيا يا بورما مشاريع القرى هذا القرى وحن دولنا ورانا مع إننا قد القاض بدأ تبته صدق السنوات الصومال لا تبته وحن أمتك هلا لقصة بالي لقصة مين ما دونا يو كعبانك عاطفة يا ربيتاك حوكنا إذا كتيرا إنه عدكوا حد قدام دونا إنه
innagu sharcigaynu ku garnaqsanaynaa ilaa inta sharciga laga quusanayo dowladnimada dhexdeeda ku garnaqsanaynaa ilaa inta dowladnimada laga quusanayo nabadgelyadaynu ilaalinaynaa wanaagaynu ilaalinaynaa wadajirkaynu ilaalinaynaa walaalayaal waxaan ku soo gabagabaynayaa kuwa waxaa samaynayay reer maaha oo isaaq maaha oo reer hebel maaha oo madhanna dad wanaagsan baa ku jira oo muxsiniina ku jira oo cadaalad doonaya ku jira laakiin wadeer ninaan wadanin oo aan hashiisa dabada haysan waa laga qalanayaa dee inta kaboodfalka samaysay ee ummadda riciyadda iskaga dhigtay ee ummadda isku dulmiday ee qaar xaqooga aastay qaarna xaqooga cilka geysay reer maahine waa dowladnimadii aynu dhisannay weeye waxaan ku soo gabagabaynayaa dad baa jira gobollada ka soo jeeda oo doodeennan inala qaba oo inagu waafaqsan oo social media ka ololeeyaa jira oo la reer awdal codkooga la dhagaysto reer awdal xaqooga la siiyo laba jira kuwaasi waynu u mahadnaqaynaa waxaynu leenahay waad mahadsantihiin waxaad u hadlaysaa Soomaaliland la wada leeyahay waxaad u hadlaysaan dal la wada leeyahay waxaad u hadlaysaan inaynu Soomaaliland inagoo isku qanacsan aynu sii wada soconno sodomeeyo sano dambe boqolaal sano doonaysaan annaguna kaasaan doonaynaa ma doonayna Soomaaliland inay kala tagto ma doonayna inaynu noqonno riciyad iyo intii riciyadda loo haynaan noqonnaa waxaan doonaynaa inaynu garba siman iyo walaalo siman noqonnaa doonaynaa waxaan halkan ka xusayaa aan uga mahadnaqayaa garyaqaan guuleed dafaac oo halkan inoogu yimiday oo ina garab istaagay waxaan leeyahay garyaqaan aad iyo aad baad u mahadsantahay waxaan u mahadnaqayaa inan barwaaqo la yidhaahdo oo magaalada Burco joogta oo u ololeynaysa reer Boorama codkooga la dhegaysto iyadana waxaanu leenahay tankii walaalood mahadsantahay